بسم الله الرحمن الرحيم maanta casharkeennii saddexaad baan rabnaa inaan qaadano cutubka marka waxa weeye hadii Ilaahay ku roon yahay shanaad baan qaadanaynaa maanta cutubka shanaad waxaan maanta kaga hadlaynaa qayb ka mid ah oo la yiraahdo mahmaahyada Soomaalidu mahmaahye leedahay mahmaahyada iyo qayb laba waxa weeye hadii Ilaahay ku roon yahay murtidu waxay ka mid yihiin af Soomaaliga marka tixda iyo tiraabta laga dhigo qaybta tiraabta bay ka tirsan yihiin marka waxaan rabnaa inaynu aragno maanta mahmaahyada Soomaalida ee afkeena hooyo mahmaahda marka waxa lagu qeexaa mahmaahdu waa hadal kooban oo xambaarsan nuxur ballaaran qofkii yirina aan la aqoon asii suugan yahanada qaybtood aaminsan yihiin inay murtida hoos timaado dadku suugaanyahan waxay aaminsan yihiin inay murtida hoos timaado laakiin waxa weeye qeexitaankeedu waa qaabkaas qofkii tiriyay lama yaqaan marka la leeyahay waxa weeye inagu markaynu hadlayno waxaynu niraahnaa Soomaalidu waxay ku maamaadaa qofka la yiraahdaa laakiin murtida inta badan ninba waxa laga sheegay baa la yiraahdaa oo qaab noocaas oo kale taa bay u xigtaaneen marka mahmaahda inta badan waa hadal murtiyeed inta badan ka dhasha waaye aragnimo ama dhacdo qof soo martay dabadeedna uu ka reebo erayo xigmadaysan oo cabiraya dhacdadiisa saameyn ku leh dhacdadii isaga soo maray markaa saameyn ku leh bulshooyinta uu af ahaan iyo dhaqan ahaan la halmaalana waxa weeye ku jirto ay meeshaas ka muuqato marka qofkaas mahmaahaya oo kale waxa laga yaabaa inay dhacdo ku timi kadibna waxa weeye dhacdada noocaas ah oo waxa weeye dilay ku reen erayada xigmadaysan oo mahmaahda aynu ku tilmaano markaas uu ka sameeyay hadaynu marka soo qaadano ujeedooyinka mahmaahda loo adeegsado mahmaah marka adeegsanayso adigu ujeedooyinka uu adeegsan karo waxa kamid ah in aad u adeegsato dhiirigelin qof inaad dhiirigeliso oo kale bulshadii kamid ah rabtay inaad dhiirigelisid inaad u adeegsato iyo in aad qof ugu dan sheegato ruux kale oo kale adoo arrimo ay kugu taagan tahay adag oo xaalad ay si kaaga cakiran tahay waxa laga yaabaa inaad mahmaahdaas aad ku mahmaahda awgeed waa laga yaabaa in qof uu ku kaalmeeyo ama aad hawshii adigu marka aad lahayd laga gacan qabso markaasna waa afmaalnimo markaas iyo waxa weeye dilay ku run yahay xigmad in aad waxa weeye dilay ku run yahay mahmaahda wax ku dhacsato in qof kale aad isaga dhiciso marka qaarkood waxa laga yaabaa geedaha oo kale markii odayaashu isugu yimaadaan waxa laga yaabaa inta laga afbadiyo adiga oo murtida iyo mahmaahda laga badiyo in waxa aan marka adiga aan ku qosayn marka laga dhacdhiciyo markaad qof afka wax ka yaqaan tahay oo waxa weeye dilay ku run yahay in dheergarada oo soo jireen ah hadalkaagii oo dhan marka intaad hadli lahayd maanta dhan waxa laga yaabaa hal mahmaaha baa laga yaabaa oo aad tiraahdo inay dadkaas waxa weeye dilay ku run yahay ay kaaga jeestaan marka in aad qof isaga celisana marka qaarkood waa loo mahmaaha in aad wado ka xiran aad ku furato hawl baa ku furmooyday oo ka cakirantay mahmaaha baad marka waxa weeye dilay ku run yahay meeshaas waxa weeye ku marinka dhacdiga dadka qaarkood oo tusaaleynaya qaybtood waxa weeye dilay ku run yahay wax sarbeebaya habab noocaas oo kale taa u adeegsanaya baad waxa weeye wadadaas si sahlan uga bixi karnaa wacyigelinta waxa weeye iyadana waa loo adeegsadaa markaan runayna bulshadeena wacyigelino inta badan waa aragtay mahmaahaya la soo qaata mahmaahayadaasi waxay noo tilmaamayaan inaan wax wada qabsano oo kale in waxa weeye aan isku tiirsanaano in waxa weeye hadii Ilaahay ku run yahay aynu horumarkeena iyo waxa weeye aayaheena aynu isku tashi ku dhamaysano inagoo mahmaahyada iyo afkeena hodanka ay ballaaran adeegsanayna hadii Ilaahay idanka ka dhigo mahmaahyada marka dhacdooyinka la xiriira inta badan mahmaahdu inta badan waxa la yiraahdaa dhacdooyin bay mararka qaarkood ku qotontaa hadaynu soo qaadano mahmaahda u horeyso kale waxa la yiraahdaa meel hoo doonaysa hadal wax kama taro waxay tiraahdaa Soomaalidu mahmaahda soo kale waxa la yiraahdaa nin ay qoliyo wax ka qaateen ama waxa weeye si ay wax ugu dhaceen baa laga yaabaa inuu nin u yibiyo isagoo xoolihiisa markaa raadinay kadibna dhowr jeer buu hadalka u sarbeebay oo u dulmaray waa uu ka tagay maantii labaad buu yimi isagoo maanta inuu xoolihiisa helo maahe aan waxa weeye jid kale u furnayn kuwii marka waxay damceen inay hadal ku duudsiyaan xaqiisi oo banaanka ku mariyaan kadibna wuxuu yiri isagoo aan hadalka badinayn buu wuxuu yiri meel hoo doonaysa hadal wax kama taro taasna waxay cadeynaysaa marka ninkaas inuu soo hal wado maahe aan wado kale marka la marsiin karin way tan qodobka labaad oo ku xiga
nin dameera wata dad la tooyasho maaha tanina waxay baxday iyaduna nin odaya oo waxa weeye dameer u rarna isag oo dameera soo dhaansaday ba waxay isku socdaal noqdeen ama isku jid noqdeen niman awr waxa weeye ay u dhaansan tahay nimanka awrta marka ay u raranta iyagu saacad bay waxay ku jirayaan dhul aad masaafadiisu ay u dheertahay isaga laakiin waxa laga yaabaa maanta inuu jidka ku sii jiro nimanka marka waa ka hormareen iyagoo waxa weeye shaah u karsaday oo meel ku nastay oo cabaar joogay buu ninkii dameerka watay soo gaaray kadibna waxay ku yiraahdeen warniyo iska fariiso oo waxa weeye dilay ku ranayay nala shaah oo warkaas uu xiri isagoo marka dantiisa aan ka boodeen nimankana raba inuu hadal murtiyeysan wax ugu sheego buu wuxuu yiri nin dameera wata dad la tooyasho ma taas marka macnaha ku jira waxa weeye isku dan inagu ma ahin isku lugna ma aynu ahin marka waxa weeye inaan horay u sii socdo baa aniga ujeedkaygu yahay idinku waxa weeye niman guuri kara oo meel dheer gaari kara xilli hore laakiin anigu waa iska sii soconaya tan kale waxa weeye caanaankayaab ceesaan ma doojiyay Soomaalidu tirada tanna waxay timi iyaduna nin odayaba wiil u dhalay la dardaarmay si fiican u la dardaarmay wuxuu ku yiri aabe reerka waxa weeye dilay ku reeyaan socdaal baan galeeyay meesha ka reerka xoogaa meeshu sibay naqayaradu ahayd oo waxa weeye meel kale in loo rarabay ahayd odaguna socdaal baa marka isagana waxa weeye ku yimi wiilkiisi uu marka la balan wuxuu ku yiri aabe reerka waxa weeye dilay ku roon yahay goortaad radhana dadka ariga soo waxa weeye dilay ku rixay oo maanta daalana oo waxa weeye geediga ku jiray waxa sameeysan neef u qal wan jaban oo marka joogay isagana wuxuu yiri awrta fuuli waxa weeye ariga ma raaci kare ninkii maadaama aabiis la ballamay wuxuu yiri intuu aabaha ama ku canaanta waxa weeye dilay ku roon yahay uu ka baqay canaanta aabiis waxa la yeesho mararka qaar kood laba talaba tala kaaga dhexdhaataa moogta ilaahay ma solonsiina waxa dhacday habeenkii qoray waxa weeye saqdax ahayd baa roobtii cirka ku gaacsanay oo roob ilaahay keenay roobkii markii uu yimi ninkii ballantii aabihiisa ku taagan awrtii buu caynka hoosta ka geli oo wuxuu yiri dilay ku roon dumarkii iyo dadkii kale oo meesha joogay waxba dhag uma shalaqseen aabihiis arrinkiisa baa ku taagnaa moogta kadibna waa uu raray wankiina waa uu fuuliyay hortii meeshii uu reerkii geeyay oo arigii yimi wan soconayay qalay haddana reerkii naqi waa ka soo raray wan jaban oo awrka fuushana waa iska daayay mid soconayay oo marka ariga ku jirayna waa uu qalay odagii baa yimi reerkii waxa weeye naqi waa ka soo raray waa ka Soomaaliyeed waxa weeye dilay hadalka loo sheegay kadibna wan waxa weeye dilay ku roon yahay waa uu qalay mid jaban baa waxa weeye awrta u saaraa markaas odagii waxa weeye murti aan canaanna waxa weeye markaas waxa weeye canaan ah oo ku canaananayay habarna aan ka taganay wixii warsow taladii baadayo tala kuma dhalato taasina marka saas iyaduna ku timi niman ku furi doonin yuusan ku rarin tanna waa maahmaah kale iyaduna Soomaalidu adeegsado marka tan laftigeeda iyaduna waxay daaran tahay nin oday ah oo waxa weeye niman reer magaalo oo marka uu tuulo ugu yimi meel ugu yimi waxa weeye dhaankii iyo waxa weeye dilay war anaga awta ku sii rarayna waxay dhayn danahaaga iyo waxa weeye dilay ku reeyay magaalada wixii ka reebtay ka soo dhamayso kadibna waxay sameeyeen awrtii bay u xirxireen dhaankii waxa weeye wixii dhan bay okay uga dhigeen laakiin reer miyiga xarigiisu meel buu ka xirmaa waxa la yiraahdaa xarig caraabo ninkii xiray baa fura la yiraahdaa iyagu waa iska gunteen iyagu siriq uma ay yeelin waxa weeye dilay alaabta si kala sarreysay uma kala hormarin wixii waa u dhowdhoobeen ninkii odayga ahaa awrtii buu iskala tagay oo nin si fiican loogu raray buu isku haystay oo goortu kaligii hadhow hawsha ku noqday bay hawsha ku adkaatay xarig walba meel ka furu garan waay marka maahmaadaas isaguna ka tagay wuxuu yiri niman ku furi doonin yuusan ku raran war hadhow nin aan waxa weeye missionka ka saari doonin ama hadhow aan waxa weeye wada ku noqon doonin yuusan dantaada waxa weeye dilay ku rayn ka boodsi tan meesha ka muuqato oo u dambaysa iyaduna waxay leedahay dad waa awr hoose dunyana waa awr sare maahmaadaas iyaduna waxay ku timi nin odaya oo wiilkiisii isagu bay reer lahaayeen oo wiilkuna ari buu leeyahay meel buu degan yahay reer buu leeyahay marka odagu wiilku haduu dhowr goor guuray oo meelaha waxa weeye odaga ay wada guurguureen wuxuu arkay aabihiis inuu ka ciyaal qurux badan yahay ka xoolo qurux badan yahay garta markii uu galana waxa weeye dilay ku roon yahay uu dhanka garta waxa weeye kaga hormarsan yahay markaas wuxuu ku yiri war aaba su'aal baan ku weydiinayaa waxa samaysaa maxay tahay niyo aniga horta waa iga ciyaal qurxoon tahay waxa weeye dilay ku roon yahay waana iga waxa weeye dilay ku roon yahay xoolo qurxoon tahay haddii ilaahay ku roon yahay garta adigu gashidna hadiiba waa dhamaatay maxaa arintaas ku jirta odaga markay isagoo dhool biraya oo wiilka oraahdiisa raba inuu ka jawaabo buu wuxuu yiri aaba miyaadan maqal dad waa awr hoose dunyana waa awr sare war dadka xoolaha dhaqdaay neefka ay ku darsanayaan bay u meeldayaan markaan rabo inaan geelu ii tarmo ratiga baarqabka aan geela ku darayo waa saayeynaya aad baan u fiirinaya orgiga qoorka oo riyaha lagu daro sidoo kale wankii sumalka ahaa oo lagu dareeyay waxa weeye idaha waa la fiirinaya isaga laftigiisa saasaa lagu xulanaya laakiin dadka inta badan gayaanka waxa la fiiriyaa ninka laba fiiriyo tuur hadduu doono ha iska lahaado hadduu doono ha madoobaado sideedaas oo kale hadduu doono ha dhuubnaado waxa weeye cidana waxa weeye ninka waxa weeye ba fiirso waxay fiiriyaan oo ay aadka u daba galaan waxa weeye gabadha
waxay yiraahdaan war gabadhan waxa weeye dilay ku runyahay dadnimadeeda iyo hawlkarnimadeeda iyo habaryaraheeda iyo eedooyinkeeda iyo abtiyaasheeda iyo walaalaheeda iyo waxaas oo dhan baa la eegaya iyo odayga dhalay deeqsinimada iyo dilay hodanimada iyo waxaas oo dhan dhinac walba waa ka fiirinayaan laakiin ninka lama eego isaga marka mahmaadaas waxay daaran tahay iyadana in dadka loo meeldayo waxa weeye marka rabo guurka in laga hadlo gabadha aad loo fiiriyo halka waxa weeye dunyada ninkii raba in dunya u tarantaay uu neefka sare fiiriyo marka dadna waa awr hoose adduunyana waa awr sare taasina sidaas ah adeegsiga mahmahyadan marka uu ku xijinayna mahmahada marka la adeegsanayo de hawlo badan baa waxa weeye dila ku ran yahay isku cakiran baa marka qaar in lagu kala fududeeyo sida marka ka muuqata waxa la yiri tan oo kale adeegsigeedu markaan leenahay yani waxa mahmahdu macnaha ku jira baynu rabnaa inaan soo saarno fulayo guul ku dhawaa baa la yiri moogta tan oo kale fulayo guul ku dhawaa waa qof hawl intuu qabtay goorta hawshii wax yar uga dhimanaayeen marka intuu daalay waxa weeye isdhiibay oo farax ka qaaday marka mid kale u yimi laad buu ku dhuftay wixii waa tusaalaan shinni kaba soo qaadinay meel ku jirta maanta dhan buu garaacay shinnidii darbigii haqani intuu dabha ku shido wax kasta ku sameeyo goorta malabku wax yar uga dhimanaayeen buu daalay buu ka tagay mid kale waxa weeye la soo baxay markaas wuxuu fulayo guul ku dhawaa war hadaa wax yar sii wada ilaa hawsha waa gaari leh tan labaad waxay leedahay sirma qabe allow sahan ah sahanka marka waxa la yiraahdaa wixii markii meel nolol wanaagsan aad marka rabtid inaad ka fakado aad raadiso hadii ilaahay marka ninkii sir waxa weeye dila ku runyaa rab kula maagan iyo dabin inuu ku qorsho ilaahay baa de abuurtay adigana ilaahay baa ku abuurtay marka adigu hadaa daacad tahay ilaahay baa ku maqan weey macnaheedu oo waxa weeye ma hungoobaysid ilaahay baa kula jiro garabkaaga waxa weeye saddex kor waayeel waa wada indhalay waayeelku inta badan waa aragtay waxa la nin gu ka weyn il guri xeedna ka weyn hadaa wax maagan tahay oo nin dhalinyaro istiraahad la hooyo maanta been u sheego xagga ka wareega istiraahad salahan wiil dhalinyaro ah tahay ama gabar tahay oo kale istiraahad la gabar inta iska raacdi gabar kala saaxiibta raaco aroos iyo meelaha aad aadid saansaantaada iyo dhaqdhaqaaqa socodka guriga marka ka baaxisay ka garanaysa kadibna waxa ku leedahay heblaayo xaga u socota hooyo halkaana ka laabanayaayo waxaan aadayaa dilay ku runyahay walaashay wax kana eedan soo salaamaya waa ku ogahay hawsha ay qabay ku tir waa ku faantay jaamar iyadu marka dhafoorkaagaas ka garanaysa waxa aad maaganta marka waayeelku waxa weeye waa aad bay waxa weeye dilay ku run yahay wax u soorayn karaan iyagoo aan wixii waxa weeye dilay ku run yahay arkin mararka qaar bay qiyaas karaan lambar afar waxa la yiri fadhi iyo fuudi cibaad la isku meelo fadhiga waa ogtahay waxa la inta badan murtida Soomaaliya xira fadhi dilay ku run yahay khasaara dhaama qofku inuu meel iska fadhiyo inuu intuu socdo khasaaro baa dhaama sababta khasaarada wax buu ka baranaya laakiin meesha halka waxa ka muuqda fadhi iyo fuudi cibaad la isku meel marka la yiraahdo sahal wax lagu meelo si sahal ah waxba kuma yimaadaan weey murtida yani inta ay xabaarsantahay oo koobani sababta ay cibka waa ogtahay waa geed waxa weeye mira leh geedkaas qodax buu leeyahay mirihii baa laga soo guraya mirihii baa waxa weeye la dubaya waa la gal ridaya marka qaar kood waa la kariya dib baa laga maraya kadib baa dheefteeda la gaaray marka meel intaas ka fadhidid miraha ciid baan iska guranaya cidna ka yeelmis shan waxa la yiri far kaliya fool ma noqdo foolkaas marka erayga meesha ku jira ay wajiga uu noqon karaa ilig ilkaha ka midna waa la yiraahdaa laakiin de inuu ilig wax iga saaran oo kaleeto fartaydu waa ii adeeg oo adeegsan kara laakiin maamaadu waxay daaran tahay wajiga inaan far kaliya lagu qabsan karin hadaa tiraay far baan ku waji dhaqanaya maanta ilba far iska gelinaysa laakiin farahaaga oo iskaashaday si fiican bay kugu nadiifinayaan wajiga waxa marka mutida ku jida ay tahay inaan hal qof kaliya ay waxba qaban karin laakiin marka saaxiibada u yeerto arkaale fuustadan gaariga ila saara tiraay hal mar baa dhinacyada lagu qabanaya waa lagu la saaraya halka adiga aad ku baabiilay ku rafaadinay way lix waxa la yiri doqonnimo waa shil taas marka waa murti iyadoo maamaam ah sababta maamaadu aad bay u dheerdhahay murtidu laakiin waa gaaban tahay shil marka la leeyahay waa aragtay shil waa wax khasaara ay ka yimaadaan ama dhimasho ama dhaawac ama maal waxa weeye khasaara wuxuu ba ka imanaya doqonnimadu marka waxa waa ka sii daran tahay shilka ila sababta marka qaar kood waxa aad lahayd baa qof iska qaadan kara dad baa been ku sheegi kara maalin walba xoolaha guran kara hadaa doqon tahay marka inta badan waa laga rooyay soo ma jeed waa laga roonaanay lambar 7 waxa la yiri geel laba jir soo wada mar tan waxay daaran tahay in waxa weeye waaya aragnimada loo soo wada joogay nin baa laga yaabaa inaad xoogaa aad ka badiso aad tiraahdo hebel waxaana ku dhamaayay sidaana ahaan jiray kaas wuxuu ku yiri isagoo aan hadalkaaga badan badoonin geel laba jir soo wada mar oo macnaheedu yahay waxaas horay baan kaaga horreeyay maanta adigu waa kugu cusubtay laakiin anigu horay waxa soo mar marka hadalkii waa ku aftigay ninkaas ka badiyay baash marka waska aamusaysa xamsan ninka sideedoo kale waxa la yiri gacmo wada jir bay wax ku gooyaan marka hadii la iskaashado guul baa la gaaraya hadii kalena waxa weeye hawshu waa aqdiyoobisa hal far hadaa ku saabiso laba farood ku saabiso afar ka dhigto shanta far 10 farood isu geyso sac baa la maqlay laakiin laba farood kaliya wax laga maqlay macnaheedu waxa weeye baa iskaashataan horumar bad waxa weeye ku yahay aad gaaraysan weey layliga marka 10kan waxa weeye dhamaystir mahmaayada ardayga waxay ugu iman karaan fasalka 8aadka iyo 4ka waxaan u dardaarmayaa mahmaada waxay kugu iman karaa in lagu yiraahdo mahmaada dhamaystir in lagu yiraahdo mahmaada inta la kala gooyo qayb laga qariyo adigu buuxi
qaybteeda kale ku aadi in labadii maamo inta labada joogtax iyo jiifutax oo kale laga dhigo la yiraahdo adigu isku aadi in lagu yiraahdo xarfo inta lagu soo qoro maamahdooda keen siyaabo badan bay kugu iman kadhaa marka hala kuwan waa la dhameystiraya waxa la yiri biyo nin u baahan meeshaas waa banaan tahay adaa buuxinay af jooga waa banaan tahay halkaas lax dhukani col iyo waa banaan tahay la dhameystiraya banaankiis maradiisa waa banaan tahay iyadana in la buuxiyo u baahan tahay hubsiimo halbaa waa banaan tahay adiga dhamaystiray sagaaro 2 tun oo halkaas lagu joojiyay waa dhamaystiraysa run iyo beeni waa dhamaystiraysa iyada qaybta labaad ba xarafka ta waxa la yiri isla doono mahmaayadan isla doonaysa halkan lambarka koowaad waxa lagu qoray calaf waa faraskaaga dameeri geel lun dumar u samir talo xume gari ilaahay intaas lagu joojiyay yani qaybta kale dhinaca kale ku yaalaan adiga marka fallaar adoo adeegsanay marka isku aadinaya waxa la yiri dhaan raacday laguma riixo intii calool tagta kula gaabshay bay taqaan ama ka samir tol ma badiyo tusaalahaan midda koowaad kala daan ka shaqeyno calaf waa intii calool tagta baa leeyahay oo kale calaf waa intii calool tagta qaabkaas oo kale isugu aadinaysa qaybta u dambaysa iyaduna oo jaa waxay ku leedahay ka qor min hal maahmaah ka qor waxa meesha ku qoran baa waxa la rabaa inaad maahmaah markaas u tusmaysan aad keento looda hal maahmaah oo ay leedahay dadka hal maahmaah oo leeyahay ragga hal maahmaah oo leeyahay roobka maroodi gabar geel jire geed nabad soo muujeedin halkaas marka waxa weeye waa in aad adigu marka maahmaahda asaas maahmaahda waxa raacinaysa marka loo yiraahdo rag maahmaahdi keen nin maahmaahdi ma keenin kali nin waa hal qof kaliya meel taagan moogta rag laakiin hadii la yiraahdo waa 4 iyo 5 iyo wax noocaas kala noqonaya marka maahmaahda u fiiri xarafku ay ka bilaabato dad oo kala maahmaadood keen baa lagu yiri oday maahmaahdiis ma keenis eey maahmaah keen baa lagu yiri gabar maahmaadeed ma keenis marka waa inaad waxa lagu yiri u maahmaah xarafka meesha kuugu qoran iyo maahmaahdood ay iskeenayso waayahay qaybtaas halkaas bay inoo ku egtahay 10ka saddexaad